السلام عليكم. قصة guusha jarmalka waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso sidee dal dhan loogu soo qaadan karaa qiso guul. wax yar sug waad ogaan doontaa sababtaan u soo qaadanay jarmalka. waxaa la dhihi karaa 90% magaalooyinka jarmalka waxay ahaayeen dambas ama deeb dhammaanshihii dagaalka labaad ee adduunka. dal sidaan ahaa siduu isugu beddelay sidaan. xalaqadii koowaad ee qisada guusha waxaan naga soo hadalnay 4 nin oo eber ka soo bilowday salka ka soo bilaabay ilaa ay gaareen guul maaliyadeed oo kala duwan. haddaadan weli daawanin waxaad ka helaysaa kanaalka ama waxaan kuu soo dhigayaa kommentiga ugu horreeyo. ku soo dhowaada xalaqadii labaad ee qisada guusha. kun 945 ciidankii casa ee Suufiyeedka wuxuu ku jiray dagaalkii ugu dambeeyay wadooyinka Berliin Jarmalka waxaana sii dhacayay gabalka xukunkii Adolf Hitler. xabaddu markay istaagtay xaalka Jarmalka sidaan ayuu ahaa dal magaalooyinkiisi dambas noqdeen gees ilaa geesna qiiqaayo. inta dagaalka ka badbaaday dhinaca dadka waa dumar intooda badan. malaayiin dhalinyaro Jarmal ah ayaa ku hoobtay furmaha dagaalka Stalingrad ee Ruushka xeebta Normandiya Faransiiska iyo bariga fog ee Qowqaas. sida uu qoray taariikhyahan Jarmal ah ummadda Jarmalka kadib dagaalka waxay gashay xaalad quus ah. niyad jabka rajo xumada musiibada iyo burburka ayaa keentay in uu dhaco isdil wadareed guud. waxaa caadi noqotay in ninku hadda xaaskiisa iyo carruurtiisa meel isugu keeno laayo kadibna isdilo. waxaa laga yaabay in ummadda Jarmalku dabar go'do. sidoo kale 12 milyan oo Jarmal ah ayaa guryahooda ka barakacay kadib jabkii dagaalka. magaalooyinka Dresden, Berlin iyo Cologne waxay noqdeen dhagax iyo ciid isi saaran. burburka iyo meydka meel walba waran. diyaaradaha xulafada Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska 25,000 oo qof ayay ku dileen Dresden oo lagu tilmaamay inay tahay magaalada ugu daran taariikhda ee dagaalku burburto. ummaddaas iyo dalkaas burbur noocaasi soo maray sidee muddo yar gudaheed u noqdeen dhaqaalayaasha ugu xooggan caalamka dal dadkiisuna ku nool yihiin maanta nolol u qalanta karaamada bani'aadamka. waxaa jira asbaabo badan oo isbiirsaday sida dabeecadda caqliyadda qofka Jarmalka oo ah ma jirto cid iga fiican. qofka Jarmalka wuxuu aaminsan yahay inuu dadka kale ka sarreeyo. isla weyninkaas si markii loo fiiriyo dhibaato weyn ayay taariikhda Jarmalka gelisay. dagaallo aanan dhammaad lahayn. dagaalkii koowaad ee adduunka, kii labaad intaba Jarmal ayaa sabab u ahaa. dhinac markii laga fiiriyo waa in uusan aqbalaynin qofka Jarmalka inuu ku noolaado nolol ka hoosayso mid qof bani'aadama ku nool yahay. howlqabadka shaqo jacaylka iyo aqbalid la'aanta dullinimada ayaa keentay in Jarmalku muddo yar gudaheed boorka iska jafaan. dumar loogu magacdaray dumarka burburka. waxaan soo sheegnay in raggii Jarmalka intooda badan ay ku hoobteen dagaalkii in badanna maxaabiis laga dhigay. waxaa soo haray dad dumar u badan laakiin waa dumar gacmaha xaytay si ay u qaadaan malaayiinta tan ee burburka ee daadsan waddooyinka magaalooyinka Jarmalka. waxaana loo yaqaanay dumarka burburka. dhismayaasha burbursan ee ku dhex jiraan ayaa loogu magacdaray. waxay ahaayeen dumar si habsami la'aana u shaqaynayo. safaf dhaadheer ayay ku jireen si ay isugu gudbiyaan qalabka lagu qaadayo ciidda iyo dhagaxyaha burbur ku reebay. magaalooyinka Jarmalka waxaa caadi ah in la arko taalooyin qadarin ah loo sameeyey dumarkaas kaalinta weyn ka geystay dib u dhisida Jarmalka. ilaa hadda ammaan iyo bogaadin ayaa loo jeediyaa dumarkaas. 2005 Helmut Kohl oo ahaa la taliya soo maray Jarmalka
jarmalka qofka talada haya waxaa lagu magacaaba la taliyaha jarmalka Angela Merkel oo kale tusaale wuxuu yidhi la taliyahan asagoo cabbirayo dumarkaasi taariikhdooda waxay ahaayeen calaamad ku tusinayso go'aanka dadka jarmalka ee ah dib u dhisidda iyo nolosha jiritaanka ummaddan magaalada caasimadda Berliin keligeed 60,000 oo dumarkaasa ayaa ka qayb qaatay dib u dhisidda xigashada qodobkan idaacadda caalamiga ee codka jarmalka Deutsche Welle tallaabooyinkii wax ku oolka ah ee jarmalku qaaday kadib burburkii dagaalkii labaad ee adduunka waxaa ka mid ahaa beddelidda lacagtii hore ee qiimo dhacday waxaana lagu beddelay lacag qiimo leh lacag cusub ayaa la soo daabacay sidoo kale waxaa boorka laga jafay aaladda wax soo saaridda jarmalka warshadaha dabcan jarmalku wuxuu ahaa dal warshado loo wax sameeyo laakiin warshadahaas dagaalkii ayay ku burbureen warshadaha waxaa ka muhiimsan cuquusha bini'aadamka ee warshadahaas markii hore samaysay xitaa hadduu hal qof ka soo haray waxaa dib loo dhisi karaa warshadahaas bal wax yar qodobkan u fiirso jarmalka waxaa kala qaybsaday kadib dagaalkii 4 dowladood maraykanka ingiriiska iyo faransiiska oo lagu magacaabi jiray dowladaha xulafada waxay gacanta saareen galbeedka jarmalka oo ah inta badan halka midowgii suufiyeedkana qabsaday bariga jarmalka maanta dhaqaalaha jarmalka wuxuu ka sarreeyaa 3 dowladood oo ka mida dowladahaas qabsaday dhaqaalaha jarmalka wuxuu ka sarreeyaa kan ingiriiska faransiiska iyo ruushka waxaa jirtay falsafo qof walba oo jarmala ku socday oo ah shakhsi walba in mas'uuliyadda dusha u rito in uu mas'uul yahay mas'uul ayaa tahay taasoo ah in qofku mas'uuliyad isi saaro in uuna waxadaynin wax isdabamarinaynin musuqmaasuqa iyo isdabamarinta waa hubka ugu xun ee burburiya rajo ummadeed dowladaha caalamka ugu faqiirsan madaxdooda waa kuwa ugu qanisan caalamka qusuur iyo guryo aad u qaaliya ayay meel walba ka dhistaan waana hantida shacabka ee dalka ay dhuuqayaan dalka dhanba waxay u malaynayaan beer ay aabbahood ka dhaxleen mas'uuliyad isi saaridda hufnaanta caqliyadda uu ku socdo qofka jarmalka ayaa kaalin weyn sidoo kale ka geysatay in dib loo soo celiyo mar labaad jarmalka 1950kii waxay ahayd 5 sano guuradii istaagiddii dagaalka 5 sano kadib jarmalka waxaa ka bilowday wax markii dambe loo bixiyey mucjisada dhaqaalaha jarmalka oo ah sida degdega jarmalku uga soo kabtay musiibadii dagaalka gaar ahaan qaybta galbeed intii u dhaxaysay 1950kii ilaa 1963 15 sano kaliya ayuu jarmalku dib u istaagay dalkii burbursanaa muddadaas yarta ayuu noqday waddan u baahan shaqaale ka qayb qaato dhismaha iyo shaqooyinka waxaa bilowday in loo soo hijroodo jarmalka dadka ugu badanna waxay ka imaadeen talyaaniga iyo turkiga ayagoo shaqo doon u ah jarmal waxaa muhiim ah in aanan hilmaamin cadaaladda darteed waa inaan cadaalad samayno oo dhammaan wax kastoo sabab u ah soo noqoshada jarmalka aan sheegnaa waxaa jira 2 qodob oo saamayn yar ku leh soo kabashada jarmalka sida mashruucii maraykanka ee Marshall oo ahaa mid lagu gacan qabanayo waddamadii Yurub ee ku gubtay dagaalka waa kaalmayn lacageed laakiin ma ahan mid lagu dhisi karo xitaa hal magaalo runtii waa wax lala yaabo in saxaafadda iyo dadka caadiga qaar ay ku tilmaamaan in mashruucaas Marshall uu kaalin weyn ka geystay kaalin la taaban karo dib u dhiska dalka jarmalka arrinkaasna waa mid aanan macquul ahayn sidoo kale qodobka labaad deynka cafinta 1953 London waxaa lagu qabtay heshiis jarmalka looga cafinayo deymihii lagu lahaa waddamada ka cafiyey waxaa ka mid ah maraykanka ingiriiska faransiiska bakistan Spain masar iyo argentina masar jarmalka ayay wax deyminaysay maanta jarmalka waa dal ixtiraam iyo qadarin ka jirto shacabkiisa iyo dadka ku nool yihiin xayaa kariima nolol u qalanta bani'aadamka masarna waa dawlad gacmaha hoorsanayso dadkeeduna ka yaacaya dalka waa natiijada xukunka militariga musiibada laga dhaxlo arrinka xusidda mudan xaalka adduunka gariiga waddanka gariiga wuxuu ka mid ahaa waddamadii deynta ka cafiyey jarmalka laakiin maanta haddaan isbarbar dhigno xaaladda gariiga ee jarmalka
waxaad arkaysaa cagsi farqiga weyn ee horumareed iyo nolosha u dhaxaysa labada dal midowga Yurub Giriiga wuxuu ku leeyahay Giriiga ayaa lagu leeyahay deyn dhan 350 bilyan oo lacagta Yuurooga inta badanna waxaa ku leh Jarmalka xilliyada qaar midowga Yurub waxaaba lagu magacaabaa bangiga Jarmalka ayadoo loola jeedo in dhaqaalaha ugu badan Jarmalka kaga qayb qaato xarunta bangiga Yurub ee Frankfurt ku taalo ayaana daliil u ah waxaa la leeyahay haddii uu Jarmalka go'aansado in uu ka baxo midowga Yurub sida Ingiriiska oo kale hal habeen ma sii jiraayo midowga Yurub uu kala furfurmi Jarmalka waa dhaqaalaha afaraad ee caalamka oo dhan ugu xoogan waana kan koobaad qaaradda Yurub soo kabashada Jarmalka iyo dib u dhiska kadib dagaalkii 1945 waa mid ka imaaday gudaha Jarmalka aqliyadda iyo dadka Jarmalka ma ahan mid ka imaaday dibadda ummadna banaanka lagama bedeli karo gudaheed ayada hadeen isbedelin cid bedeli karta malahan malaayiin kastoo la siiyo Jarmalka maanta waa dal horumar dhaqaale mid teknolojiyadeed ka jiro gawaarida qaaliga farsamada casriga kelmadda made in Germany kaliya ayaa badeecada Jarmalka ugu filan ammaan iyo qiimo wax markii la amaanayo waxa la dhahaa Jarmalka ayaa lagu soo sameeyay sugnaanta tayada qish iyo khiyaano la'aanta aniga shakhsiyan aad ayaan u ixtiraamaa dadkaas cajiibka mawduuceena maanta intaas ayuu ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh